looga qabaysto Soomaali su'aasha hore sida ugu wanaagsani waa qofku marka horeysa inuu istijadiisa dhamaysto wixii jirkiisa gaaray wasakh iyo iska dhaqo kadib waysa dhamaystiran weysaysto kadib uu biyaha isku dhaqo dhinaca midigta dhaqo kadibna dhinaca bidixda dhaqo markuu dambeysana lagu ka raaciyo intaas waa sida ugu fiican ee ugu qiimo badan in looga qabaysto inta ugu yaray qofka ku filan ee waajibkii iyo qaankii kaga dhacayana waa inuu jirkii wixii najaasana iska dhaqo jirkiisoo dhan madax iyo minjana biyaha uu gaarsiiyo laba gooraba isagoo niyadii inuu janaabiya ka qabaysanayo la midka ay leemanaya taasi waa qaybta labaad qofka duu qabaysanayo qabays kadib weysa ma u baahan yahay qabaysku waa laba qabays waajib hadduu ahaa ka horna uu weysaystay ama weysadii la niyooday inay raacdo waxaan leeyahay hadduu qabayska waajibnimadiisii niyooday ama marka horeba soo weysaystay weysadaas iyo qabayskaasaa ku filan way israacayaan hadduu qabayskuusan kii waajibka ahayn hadduu niyoodo ama intuu horey usoo weysaystay wax weysada jabiya ama qabayska dhexdiisii ka dhicin iyadana qabayskaa kadib weysa dambe uma baahna tan waajibka laakiin qabayska waajibka aan ka soo qaadna janaabada qofkii janaaba ku dhacday uu weysaystay kadib buu qabaystay saabuun buu qaatay shaam buu qaatay wuu ismarmariyey xubnu qaatay shaam buu qaatay wuu ismarmariyey xubnihii taranka iyo taabtay meeshii qabayskii dhexdiisa laga yaabaa bay neefi ka timid qabayskii dhexdiisii oo markuu weysaystay kadib ayay kaadi qabatay oo iskaajay weysadii ka horeysay janaabada weli way jirtaa kaadidu ma jabiso hadduu saxroodana ma jabto hadduu istaabtana ma jabto waa weysada keliya waxaa jabiya keliya xiriir gogoleedoo dambe keliya jabiya weysada qofka janaabada loo qaweysaystay ka horeysa qabayska keliya waxay jabtaa markuu galmo xiriir gogoleed kala yimaado hurdo ma jabiso xubin taran oo la taabto ma jabiso musqul iyo saxaro iyo kaadi ma jabiyaan neef timid ma jabiso wax jabiya ma jiraan waana waxyaabaha hadduu qofku janaabadii ka weysaystay oo kadib musqusha uu galo kadibna qabaysto weysadaasaa ku filan walidaalika culimmadu waxyaabaha khilaaf badanna kama jira masaladaas culimmada kamida markay isu jawaabayeen mid baa gabay ku tiriya su-aal ahaan wuxuu ku keenay weysada galmada keliya ay jabisay yaa garanaya wuxuu yihi qul lilfaqiihi walilmufiidi ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد بل لم ينتقل وضوءه لم ينتقل إلا بإيلاج جديد أي شيء كبير ويسو قفكو أنت كتبين wayse si fiican marka loola yimid aan jabaynin si kasta hadduu u saxaroodo ama wax ka badan la yimaado wax kale la yimaado yay sheegi kara oo weysadiisa aanay jabinin galmo waxaan ahayn aanay jabinin nin baa u soo jawaabo wuxuu yiri yaa mubdi al-laghz as-sadid ya wahid al-asr al-farid هذا الوضوء هو الذي للغسل سنة كما يفيد وهو الذي لم ينتقض إلا بإيلاج جديد ninkan halxiraalaha keenayo xilligana ragga culimada ninka halxiraalaha iskale waa Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala maruu sharxay kitaabka Muwatta wal Imam Malik tanwir al-hawarik sharx la yiraahdo ku sheegay xadiis ghusliga janaabadii ka hadlay wuxuu yiri ninkan bilaabay xilligana culimada loo noqdaah weysadaas ay weydiisay oo weysada sunnada ee qabiiska waajibka ka horeysa iyadaasi ma burto galma xiriir gogoleed kaliya ku burtaa saas darteed weysadii ka horeysay dadku marba waxayna weydiiyaan waan weysaystay janaaban ka qabaysanaya waan istaa taabtay meega jabaysa maya